kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Galab wanaagsan daawadayaal. Maanta waa maalin Jimcaha, bisha Janaayana ay tahay 5. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan oo uu idiin soo gudbinayo anigoo ah Maxamed Xasan. Trump oo laga reebay codbixinta xafiiska socdaalka ee cusub, guriyeynta ku meel gaarka iyo nooc cusub oo fayraska COVID-19 ah. Taas waxa ay qodobadii wararka ugu muhiimsanaa, haatana waa kuwan iyagoo faahfaahsan. Trump oo laga saaray doorashada. Xogayaha gobolka Maine, Shanna Bellows, waxa ay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saartay liiska codbixinta horudhaca ah ee Maine ee ku tartanka madaxweynenimada Mareykanka, iyadoo oo go'aankeeda ku salaysay doorkii uu madaxweynihii hore Trump uu ka ciyaaray rabshadihii ama kacdoonkii ka dhacay aqalka baarlamaanka Mareykanka ee loo yaqaano Capitol Building sanadkii 2021 bishii Janaayo 6. Haddaba Maine waxa ay ku biirtay gobolka Colorado iyadoo noqotay gobolka labaad ee Trump iyadu ka reebta codbixinta horudhaca, iyada oo ay labada gobolba soo xiganayaan qayb ka mid a qodobka 14aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo iyadu mamnuucaysa qofkii ka qayb qaata kacdoon liddi ku ah dowladdu inuu murashax xisbi noqdo ama uu doorasho ka qayb galo. Go'aanka Colorado ayaa haddaba waxaa la filayaa inuu hortegi doono maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. Haddaba xisbiga iyaguna jamhuuriga ee gobolka Maine iyo waddanka oo dhanba waxay aad iyo aad uga soo horjeedsadeen u dhaleeceeyeen go'aanka ay qaadatay Shanna Bellows. Trump ayaa isagu haddaba waajahayaa kiisas dembiye ah isaga oo markaana raadinayo mar labaad kusoo noqdo xilka madaxweynenimo, uu markaa isagu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga. Kiisaskiisa waxa ay haddaba la xidhiidhaan dembiye lagu soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin in uu isagu maaragtay si xun u isticmaalay sir culus oo waddanka uu lahaa, inuu iyaduna faragelin ku sameeyey doorashooyinkii isaga lagaga badiyey sanadkaas, iyo iyagu dembiye kale. Xafiis cusub oo soo galootiga. Sanadkii haddaba 2024 waxa ay sanadkan 2024 dhaade waxay dadka iyagu u dooda xuquuqda dadka soo galootiga gobolka Maine ay ahmiyadda ugu sarreysa siiyeen abuurista xafiis loogu talagalay dadka ku meel gaara oo heer goboleeda, kaas oo isagu la doonayo in lagu caawiyo dadka soo galootiga si ay u heli lahaayeen shaqooyin. Haddaba in ka badan 10 gobol oo Mareykanka ah ayaa iyagu waxay leeyihiin xafiiskan oo kale lamid ah. Sanadkii horena waxay guddoomiyaha gobolka Janet Mills iyadu amar ku siisay in maamulkeedu ay sameeyaan xafiis noocan oo kale ay kusoo biiraan gobolada, iyada oo ay markaa iyadu fulinayso hadafka gobolka uu leeyahay ee isaguna ahaa in 75,000 oo qof oo cusub oo shaqaalaha la helo gobolka Maine marka la gaaro sanadka 2029. Isbahaysiga haddaba xuquuqda muhaajiriinta ee Maine oo iyagu markaa sheegay in ay doonayaan in xafiiskani uu ururiyo xog cusub oo iyadu meel mar ah oo wax lagu qaban karo, taasoo ku saabsan bulshooyinka soo galootiga iyo shakhsiyaadka oo ay ku jiraan haddaba macluumaad tirakoobkooda ku saabsan tirakoobka xirfadaha iyagu la yimaadeen iyo hab iyadana lagu raadraacayo horumarka ay sameeyaan shakhsiyaadka iyo qoysaskaas soo galootigihii. Xafiiska guddoomiyaha gobolka Janet Mills iyadu waxa ay amar ku siisay xafiiskeeda horumarinta iyo mustaqbalka la yidhaahdo in ay iyagu soo saaraan qorshaha xafiiskan iyada lagu aasaasayo ugu dambeyn bisha Janaayo 19. Guriyeynta ku meel gaarka. Magaalada Portland waxaa 15 dumar ah oo soo galooti ah oo iyagu bilaa guri ahaa laga siiyey iyagii carruurtooda laga siiyey hoy ay taageero ka helayaan barnaamij guriyeynta ee ku meel gaarka la yidhaahdo. Barnaamijka oo ku yaala xarun markii hore ahaan jirtay kaniisad ayaa wuxuu bilowday xagaagii hore markii ay iyagu isbitaalada maxalliga ah iyo hay-adaha kale iyagu dadka la shaqeeya ay arkeen inay sida naxdin leh u korayaan haween uur leh oo aan iyagu markaa guri haysan oo guri la'aana. Barnaamijku wuxuu haddaba u oggolaanayaa hooyooyinka cusub inay degganaadaan goobtaas ilaa 1 sano iyagoo markaana la siinayo tababaro
xagga luqada Ingiriisiga iyo sida looga faa'iideysto caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka ee halkan gobolka. barnaamijku waxaa maalgeliyey hay-ado iyagu dawliya oo la wada leeyahay iyo hay-ado gaar loo leeyahay, waxaana filayaan in barnaamijkan uu tusaale fiican u noqdo waxqabadka kale ee gobolka oo dhanba. COVID-19 cusub. saraakiisha caafimaadka ee gobolku waxa ay ku boorinayaan in dadweynaha Maine ay qaataan tallaalka ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 maadaama uu nooc cusub oo fayraska ihi ku faafayo gobolada waqooyiga bari. kiisaska ayaa ku soo batay Maine iyada oo gobolku uu diiwaan geliyey in ka badan 1,000 kiis andhaado oo bukaan oo cusub oo xanuunkaas qaba toddobaadkii ilaa bilowgii December laga soo bilaabo. xilligii haddaba ugu yaraa fayraskani waxa ay Maine diiwaan gelinaysay 100 kiis oo keliya toddobaadkiiba. Maine CDC waxay haddaba sheegtay in fayraskan cusubi uu u muuqdo in si dhib yar loo gudbin karo, laakiin tallaalkan isaguna uu ugu dambeeyey ee COVID-19 uu yahay mid aan idhaahdo waxtar weyn ula xagga iska difaacidda. waxaad nagala socoteen Maine Public News Connect. waad mahadsantihiin daawashadiina iyo intaa iyo is arag dambe. wassalaamu calaykum. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhaweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso.